madaxweynaha qaranka Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxa uu kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada ee Somaliland xubnaha guddiga doorashooyinka ee cusub. Kulankan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu xafiiskiisa kula qaatay komishanka doorashooyinka waxa uu madaxweynuhu guddiga xubnaha ka dhageystay caqabadaha ku gadaaman qabsoomida doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka iyo xubnaha komishanka doorashooyinka laftooda. isagoo madaxweyne Biixi ku dheeraaday ahmiyadda ay doorashooyinku dalka u leeyihiin iyo sidoo kale madaxweynaha danaynaya in degdeg looga gudbo dhammaanba wixii turantarooyin hortaagan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka. dhinaca kalena xubnaha guddiga doorashooyinka waxay madaxweynaha xog waran ka siiyeen wixii uu qabsoomay intii ay xilka hayeen iyo waxyaabaha mustaqbal ahaan qorshaysan inay qabtaan. kulankan maanta madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu la yeeshay guddiga doorashooyinka cusub ayaa ku soo hagaagaya iyadoo maalintii shalay uu kulan la qaatay guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka oo iyaga horeba u sheegeen in wax wada shaqayn la yeelanaynin guddigan doorashooyinka isla markaana ay hore ugu baaqeen in la kala diro. sidaas oo kale guddi iskood isku xilqaamay oo dhexdhexaadinaya khilaafka xukuumadda iyo xisbiyada ayaa soo jeediyay in guddigan la kala diro iyadoo saddex xisbina ay soo dhaweeyeen. hayeeshee kulankan maanta madaxweyne Biixi la qaatay guddigan ayaa waxba kama jiraan ka dhigaya kulamadii hore oo dhan, waxaana dadka arrimahan adroosa ama roga ay sheegayaan in tani ay khilaafka dabka ku sii shidayso.